mahadsantahay cabdiqaadir. dagaalkii ka dhacay degmada Gurceel ummadda hadda way garanaysa ciddii soo qaaday dagaalkaas aaday u fahamsan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay ahaayeen. annaguna waxaan joognay deegaankeena Gurceel oo bulshada galmudug ee Gurceel ay aad iyo aad si wanaagsan ugu soo dhaweeyeen. waxaan kusoo noqonay deegaanka muddo markii ka maqlin kadib waa aad iyo aad u foolxun. waxaan leenahay intii ku dhimatana allah ha naxariisto, intii ku dhaawacantana ilaahay subxaanahu watacaala ha noo caafiyo. wixii khasaare maaliyada oo gaaray ummadana waxaan leenahay ilaahay ka khayr qaba ha siiya ayaan leenahay. Sheekh Shaakir waxaa sheegtay in weerar lagu soo qaaday. dowladdan waxay leedahay deegaan amni ah oo dowladdu gacanta ku hayso ay ahlu sunna ku soo duushay. yaa duulaanaha labadii indhaha mucallim ahaa cidda duulaanka eedo xabadda kusoo bilowday Gurceel waa la og yahay. annagu bulshadeenni iyo shacabkeenni iyo deegaankeenni yaan u nimid, waana na soo dhaweeyeen. sidaas ayaana deegaanka ku joognay. marka ciddii weerarka ku timid oo ciidamada soo daabusho keentay waa la garanhayaa. taasi waxa weeye faliisa bacdal cayaani bayaano wey. yacni mar haddii indha ku arag shayga uu yahay oo indhaha lagu arkahayo in la faahfaahiyo uma baahna. 4 maalmood dagaal, dhimasho, dhaawac, burbur hantiyadeed ayaa ka dhacay idin dhexeeya idinkii dowladda. waad ka baxdeen oo lama dhihi karo cudud ciidan baa laynkaga saaray Gurceel. maya lama dhihi karo. dagaalka afarta maalmood socday runtii annagu maba aanan wadinba, bal waxaanan annagu difaacaan ahayn maahane weerarka dowladda ayaa waday. marka cududna nalo kagama saarin, adiguba waad og tahay. wadahadal ayaan deegaanka aan uga baxnay. wadahadalkaas oo ahaa nala ku weydiistay in aan magaalada banaanka uga baxno, wadahadalna la furo si wanaagsanna wadaxaajoodku oo u dhaco. sidaas ayaan uga baxno maana si kale uga maana bixin. waa nala weydiistay inaan ka baxno, wixii kaloo nala weydiistaan waa nala ka helay. arrinku sidaas buu ahaa, si nabadgelya in arrinka wadahadalka oo u dhaco darteed ayaan sidaa u samaynay. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wadahadal mausan carabaabin, xildhibaanada iyo saraakiishuna ma aysan carabaabin. yaa marka wadahadalka la gelaysaa? runtii waxa weeye caqligood maahane wuxuu yidhi waa caadadoodu yidhi. haddii ballankii hadda laga baxana waa caado hore usoo jiri jirta waaye. annaka codsiga waxaa noo soo gudbiye oo 4 maalmood oo dagaalku soconayaba codsiga nagu soo celcelinaya culimaa udiinka waaweyn ee ahlusunna waljamaaca ee jooga Soomaaliya oo dhan. gaar ahaan waxaa wakiil ka ahaa mashaayikh Sheekh Saacid iyo Sheekh Mursal iyo mashaayikh kaleeto oo Muqdisho jooga. ayakaas ayaa codsaday 2 qodob ayna naga codsadeen inaan magaalada banaanka markaanba uga baxno. baabuur dagaalka lagu qabsadana ay la soo wareejiyo kabacdina wadahadalku bilowdo oo furmo. mashaayikhdaasi markaa arrinkaa in badan ugu soo celcelinayeen. waxay soo xiriiriyeen senator Cabdi Qaybdiid iyo senator Dhegey. markaasaan wada hadalnay. labadaasina waxay wadeen annaka wakiilka ah xaggaas. labadan mashaayikhdaana waxay dhaheen annaka wakiilka ah culimada. marka sidaas isfahan baa ku dhacay in dagaalkana la joojiyo, xabadda la joojiyo, ciidankana saas lagu kala qaado. marka kabacdina la wada hadlo. wadahadalka ka hor marka labadaas qodobaa nala ka codsaday in masalanba aan magaalada banaanka uga baxno. baabuurta aan yacni markii nala kula dagaalamo qabanana aan ku celino gacanta dowladda. sidaasaan mashaayikhda ugu wareejinay iyo senataradii. ganacsatadana waxaa ka socday xaashi carab ka socday.
isaga ayaan gacanta u gelino ay dhahaan gacantaa naloo geliyo gacantaan u geliya aniga u geliya gacanta magaaladiina waa tan ciidanka dib aan uga saaraynaa markhaati buu ka ahayo isagaa mashaa'ikhda iyo sanataradii kulli wakiil ka ahaa annakana asaga aan la baashirnaba baabuurta furayaalkoodana asagaan ku wareejinay alxamdulilahi rabbilcaalamiin si nabadgelya ayaan banaanka ugu baxnay wadahadalkii unbaa yacni la sugahaya annaka wixii nala ka reebo nala weydiista waa ka helay waxay ahayd inaan magaalada gees uga baxno iyo in baabuurta aan wareejino marka labadii qodob nala weydiistay oo sanatarada iyo mashaaikhduna weydiiyeen waa nala ka helay iyo kaleeto ay iyaku isku aadiyeen oo dhan annaka ballan qaadnay taasaa la sugahaya wadahadalkii inuu bilowdo biidni illaahi alkariim si nabadgelyaana lagu dhameeyo iyo muwaafaqo saasaan rajaynayna markaad baxdeen kadib wadahadaladii xagee ku dambeeyeen waxyaabaha aan sugayna ayay ka mid yihiin waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inay si wanaagsan ku dhammaadaan ayaan rajaynaynaa cid walba imana waa og tahay wixii guriceel arrintiisa aan ku dejinay wixii guriceel aan yacni dadkeena aan ugu tanaasulnay cid walba iba waa og tahay marka alxamdulilahi waxaan rajaynaynaa midda damboo hartay waxaa u jooga mashaa'ikhdii waxaa u jooga raggii ballan qaado salatarada ballanqaadkoodii uun baan sugaynaa biidni illaahi alkariim inuu si wanaagsan ku dhammaadana waa rajaynaynaa oo muwaafaqo iyo midnimo loo midoobo shabaab iyo argagixisadu ay dhacdo ayaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim dagaalkii waa dhacay khasaaro naf iyo maal balaa ka dhashay mas-uuliyaddaasi yaa qaadaya khaasatan adinku doorinta leeg baad ku leedihiin annaku hadda wax dawlaba kuma lihinba waxaad kule ciddii weerar ahaa oo dawlad ku lahayd waxaad ogtahay bohol in nala kusoo weeraray meesha la yidhaahdo annakoo iska deganoo meeshaa dhahayna iclaaminay inaan khawaarij la dagaalamayno iska difaacayno waayo 12 sana la dagaalamayna marka waa u dakanaysanna deegaankiina waa soo galeen inaan iyaka iska difaacayno khawaarij la dagaalamayna iclaaminay ciddii markaa masalan ba ka saqo martay iyo duulimaadka soo qaaday ciddaasa yeelanayso laakiin markii masalan ba arrinkaas meeshiisa iyo maxalkiisa yeelanaysa arrinkaas nabadaa lagu baaqay nabadii baan aqbalnay waxbaa nala ka codsada waa fulinay wixii masalan ma dhanka kaleeta unbay ku dhiman yihiin wadahadalkii inuu bilowdo oo raggii ka shaqaynhayay oo mas-uuliyiinta mashaa'ikhda iyo mas-uuliyiinta ahaa intaba taas ayaa la sugahayaa biidni illahi kale si wanaagsan inay ku dhamaataana rajaynayna biidni illah dagaalka xaggiina maxaa khasaare ka dhashay in kasoo gaaray runtii meel haddii dagaal ka dhaco khasaara waa dhalanhayaa waana midda hadda aan ka taasiyeynayo weeye intii wax ku gaareen dhimashadiina ilaahay u naxariisto labada dhinacba dagaal nasiib daraa buu ahaa oo laga baaqsan karay runtii laakiin iska qadaraay intii dhaawacantana ilaahay noo bogsiyo ayaan leenahay labada dhinacba dad masalan ba yani aan inay dagaalamaan munaasab aysan ahayn dadkii inay u midoobaan shabaab ay ahayd oon ku qayliyanayna war loo midooba nimanka oo loogu talagalay in masalan ba iyaka la isku gooyo unbay ahaayeen marka arrinkaasi nasiib daray ahayd waxaana rajaynaynaa inaan ka garwaaqsano oo iska afgaranno oo si wanaagsan soomaalida waxay dhahaan dagaal sokeeyo doodkaaga hooriya u dambaysa marka dagaalada noocaas oo kaleeta waa iska dagaalo nasiib daraa waaye dagaalkeenna waxaan in badan ku baaqna xabadda aan midayno nimanka argagixisada aan u midayno marka annaka halkii naga taagan tahay iclaamkeenni horaana noo taagan waanu iclaaminay dagaalka khawaarijta lala galahay saraakiil weliba kuwii ugu sarreeyey ahlu sunna oo dhaawac ah oo ciidamada dawladda gacanta ku dhigeen maxaad xaaladooda kala socotaa arrinkaasi nasiib daradoo kamid ahaa qof soomaali ah oo haddana mas-uul ah in la ugaarsado oo loo ugaarsado masay weliba asagoo haddana aan hubaysnayn oo markaa iscaaf u baahan iyo in la gacan siiyo loo gargaaro in masalan ba la ugaarsado nasiib daradii kamid ah waxyaabaha dib looga wada hadli doonana ku jirta naftirkiina waxaa la sheegay inaad ciidamo dhaawaca gacanta ku haydaan dawladda ma jirtaa annaku ciidamada aan gacanta ku hayno ama dhaawaca ama aan dhaawaca ahayn sida kuweena ula dhaqanaa
horena waa u dhacday oo bohol markii aan ku qabanno iyakoo nool iyo iyakoo geeriyo intaba dhaawiciina waa daaweyne meydkiina waxaan ku wareejinay dadkii yani u ahaa muhimka in lagu wareejiyo dadkii kuwii noolaana waxaan ku wareejinay dadkii muhimka oo waalidkoodii iyaan ku wareejinay iyo ciidamadii laftoodaan ku wareejinay marka annaka dadka nasiib darrada noocaasa lagu khalday ma inaan khaldano maaha marka annaku mar labaad waa inay noo noqdaan kulligood isku mid waa inay noo noqdaan. Sheekh Shaakir waxaa laydinku eedeynayaa gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug dagaalkiina inuu yahay dagaal siyaasadeed oo laga maleegayo gacmo ka baxsan Galmudug oo iskugu jiraan siyaasiyiin maamulo daris ah dalal shisheeye taa maxaa ka leedahay? waxba kama jiraan waa propagandada Facebook wey. haddii wada hadal dhaco ahlu sunna wada hadallo badan bay gashay waa dowladdu waa isku khilaafeen rabitaanka siyaasiga ee ahlu sunna ma dhamaata ayaa la leeyahay tusaale ahaan ciidamo fara badan baa la qarameeyey saraakiil baa laydin qarameeyey xildhibaano 20 gaaraysa laynkugu daray intiiba waa ku qanci weyseen dadku waxay ka aaminsan yihiin inaysan baahidiina siyaasiga dhamaan taa maxaa ka leedahay? waxa weeye dadka noocaas waa dadana gaara la weeye waa dadka hortaagan baarinta dadka hortaagan oo in wax xalismaan inay wax isku diraan maahan aan wax kale ka shaqeynin kuwaasa noocaas dhahaya maahane dadka deegaanka iyo dadka degan danta u ah waa la yaqaanaa dadka badbaadiyana waa la yaqaanaa dadka Galmudug isu keenana waa la yaqaanaa midaynta la mideeyey maxalka dadka waana waa la yaqaanaa marka taas dadkani waxa weeye dadka danaha gaarkaa leh oo ayaka dantooda khaaska ka fiirinaya ummadana isku goyahaya waa dadka arrimaha saas dhahaya wey. Galmudug waa isku haystaan arrimaha siyaasadda iyo maamulka markii laga yimaado dhaqanka oo ah tiirka koowaad ee bulshada dhexdeeda aad bay siyaasadiina uga soo horjeedaan taasoo dhaawac xaggiina kuma ma wax dhaawac kuma dhaqanka annaka iyo iyaku way isla soconaa afraad gaara way iska dhici kartaa oo fikrigooda inta ku hadlaan haddana ka laabta way iska dhici karaan laakiin annaka fikrigeena saliimkaahi waa fikrigii aan ku maamulayna deegaanka muddada 12 sano aan ku maamulayna odayaalka dhaqanku ay dhaqan nugu ahaayeen oo dhalinyaro nugu ahaayeen oo hooyooyin nugu ahaayeen oo culimadu ay hogaaminaysay oo yani shabaabka uga xoreeyeen oo dhiigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dhaqankoodii ay ku deeleen intaasna odayaalka xoolaha iyo dhalinyarada iyo kulli u dhiirigelinahaya marka sidii bay u joogaan odayaalku laakiin way iska dhacayaan afraad mararka gobol hadeella ay ka soo baxaan way iska dhacayaan taasna dhib ma laho waxa waaye waa fikra markaa ku soo dhacay oo ka dhashay asaga ku dhashay ama laga dhashaday. Sheekh Shaakir wada hadallo ayaa hadda sugaysaan oo magaalada uga maqan tihiin xabadiina ku istaagtay haddii wada hadalladaas guul daraysaan qorshihiinu ma dagaal kala waxa weeye qorshahaano mar kastaba waa amni iyo istiqraar nabadgelyo weeye qorshahan dadkeena iyo deegaankeena marna duulimaadkaan ka ilaalinaa dadnimadoodaan ilaalinaa deegaanku inuu xor noqdo shabaab xor ka noqdaan ilaalinaa waxa aan la dagaashanahay oo aan ilaalinayna waa khawaarijtii weyn annaka dagaalkeena iyo hadafkeena ugu weyn halkaasuu noo joogaa halkaasuu nagu aadaya marka maahan annaku inaan dadka iyo deegaankeena amni darro iyo aanu horseedayno maahan waa nagu yaqaanaa dadkaaba nagu yaqaanaba marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin nabadgelyada amniga istiqraarka waa astaanteena. ugu dambeyn muxuu yahay baaqaaga aad kula hadlaysid shacabka reer Galmudug ee laga filayo ee wanaagga? waxaan leenahay shacabka Galmudug iyo shacabka Soomaaliyeedba aanu midoobno sidii afkaarta guracan ee argagixisadu ama ay dabada ka reexayaan ee ay dad kale soo saaranayaan ee ummadda lagu halaagayo sidii aan uga midoobi lahayn oo aan wad wanaagsan ummadda ugu horseedi lahayn oo baraare iyo barwaaqo aan u gaari lahayn inaan u midoowno taasaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa bulshada Galmudugna ugu baaqayaa annakuna qaybtii nooga aadan ka culuma ahaan sidaan hore uga qaadanay ayaan ka qayb qaadanaynaa in loo istaago loo midoobo oo aan wax kale la isku mashquulin taas ayaan soo jeedinaynaa shacabkeena wanaagsanna ugu baaqaynaa
shacabkeenna wanaagsanna ugu baaqaynaa